ayaan waa xul dumaroo xilligan hablaha jira xag kastaba markaan dayey qurux waa xaggeedii dherarkiiyo xubnaha qoran xishoodkiiyo edaabtaba xaakim baa ugu deeqee xilkaskii haweenkiyo waa xuuralcayntii dunidee hagoogtaba ma xoortoo way xijaaban tahay abid siduu xeerku dhigay iyo xadka dhaqanka kama tegin waa xafida diinteeda xooja ma taqaan xan iyo qurun kaftankeedu xanaf male hadalkeedu waa xigmad beentu waa ka xaaraan way laab xaadhan tahay oo qalbigeedu waa xabxab xaasidnimo umay dhalan ma xigsato qabiilo ma xumayso aadmiga dadka way xushmaysaa deriskiiyo xigaalkiyo martiday xaq soortaa oo ehelkay xaq dhowrtaa inta xaawalay gabadh gamba xidhata oo idil xidigtooda weeyaan xaaji aabbihii dhalay iyo xaqiiq hooyadeedbaa ku soo habay xalaal oo xurmad iyo wanaaggaba xaggooday ka wadataa ragba kay xidhiidhaan xusuus aan dhammaan iyo xubbi ninkay u qaadee xalaal kula heshiisee xaaskiisa noqotee u xambaarto ubadbaa ku xamdiya ilaahoo ku xasila adduunyada ayaan waa xul dumaroo xilligan hablaha jira xag kastaba markaan dayey qurux waa xaggeedii dherarkiiyo xubnaha qoran xishoodkiiyo edaabtaba xaakim baa ugu deeqee xilkaskii haweenkiyo waa xuuralcayntii dunidee hagoogtaba ma xoortoo way xijaaban tahay abid siduu xeerku dhigay iyo xadka dhaqanka kama tegin waa xafida diinteeda xooja ma taqaan xan iyo qurun kaftankeedu xanaf male hadalkeedu waa xigmad beentu waa ka xaaraan way laab xaadhan tahay oo qalbigeedu waa xabxab xaasidnimo umay dhalan ma xigsato qabiilo ma xumayso aadmiga dadka way xushmaysaa deriskiiyo xigaalkiyo martiday xaq soortaa oo ehelkay xaq dhowrtaa inta xaawalay gabadh gamba xidhata oo idil xidigtooda weeyaan xaaji aabbihii dhalay iyo xaqiiq hooyadeedbaa ku soo habay xalaal oo xurmad iyo wanaaggaba xaggooday ka wadataa ragba kay xidhiidhaan xusuus aan dhammaan iyo xubbi ninkay u qaadee xalaal kula heshiisee xaaskiisa noqotee u xambaarto ubadbaa ku xamdiya ilaahoo ku xasila adduunyada